aad baan idin salaamaya waa Faysal Cabdi Bootaan waa taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka militariga Somaliland. Faysal waa military man absolute sidoo hadlay waxa weeyaan horta waa maxbuus xuquuq buu leeyahay horena waan uga hadlay dagaalka nasiib darrada ee ka dhacay ama ka socday gobolka Sool oo laga baaqsan karayay hase yeeshee dhacay waxa weeyaan xadgudubyo badan baa dhacay maxaabiis badan baa la qabtay waa la wareystay waa lagu xadgudbay imka Faysal oo ah military commander waa maxay waa hogaamiye military eragan uu oranayo يعني ده لما كان dhalinyarta ama nimanka ciidamada nimanka qabtay ee doonayay inuu hadlo oo baryootamo habeen erayga oranaya khasaare aad iyo aad weyn wuxuu gaarsiinayaa ciidamadiisii iyo sharaftiisaba hase yeeshee military commander maxaa lagu waa maxbuus la qabtay waxa weyn cidda qabatay inay xuquuqdiisa isaga iyo ciidamada kaleba marka dagaalkaas intuu socday meel ka dhacyo badan ayaa dhacay oo ka dhan ah xuquuqda maxaabiista dad is ah oo subxaanaka yaa cadi biaafaadi bilaaya ka dhex dhacday oo laga baaqsan karayay mushkiladan way dhamaanaysaa dadkan hadhow toole ama waxa la wada yeesho ama hal la kala yeesho walaaltinimadu ma go'do dadkani ma dhamaanayaan waxaan wax taariikhda galay marka maxbuusku waxa mudan yahay ixtiraam waa nin weyn oo generaal oo ciidamada oo la qabtay afkiisa iyo sharaftiisa iyo meeqaamkiisa midna ma ahayn baryootamo waa maxbuus wuxuu xaq u leeyahay dadka qabtay in sidii maxbuusada wala dhaqmaan sida uu sheegay dadka amana dila abada maxbuus baan nahaya wax ka dhaxeeya male hadii qaar hore baryootame حبيان وحكا كينيا واقف وسدو فكريه ميقام كتاغيه بقشده iyo cabsida iyo handadaada iyo marka isagu laakiin waa military man waana commander waa taliye ciidan wuxuu garanay erigiisa saamiintu leeyahay hadii si fiican loo dhaqmana waa abaal hadii lagu xadgudbana yana waa dhib kale oo taalo marka dagaalkaas mashaakil badan baa dhacay kii ugu dambeeyay isugu soo dhib weyn bay ahay wuxuu ahaana arugu horena waa uga hadla imikana waan ku celinaya wuxuu ahaa dagaal laga baaqsan karayay wuxuu ahaa dagaal erey wax lagu dhameyn karayay tabashooyinkii jiray erey baa lagu dhameyn karayay hase yeeshee farsamo xumo dhacday ayaa kaliftay in la isku rogmado oo magaalooyin iyo hanti iyo naf iyo maalba in la baabao insha Allah ta'ala khayr baa ka dambeynaya labada dhinacba cidii dhimatay waan tacsiyanaya ciidanka qaranka Soomaaliland dhibta soo gaadhay insha Allah ta'ala iyaguna way ka soo kaban doonaan wuxuu baa muhiim ah dadku inay gartaan waxay dantu ugu jirto iyo maslaxada iyo midnimada bini'aadamkuna midnimada waxa keena waa kalsoonida dawladuhu adduunka ee la yiraahdo horumareen waxay ku dhiseen wax kala maaha waa kalsooni dawladnimaduba kalsooni bay ku dhisantahay hadii kalsooni la waayo waa la dumaa ciidanku waa waxa ugu adag ee kalsoonida ku dhisan sababtoo ah waxa weeyaan waa secret baa la ilaaliyaa isku wada shaqeynta la ilaaliyaa waxa weeyaan waxa la ilaaliyaa awaamiirta waa waxa ugu adag wasis hay'adaha ugu adag ee dhisan ee muhiimka tahay in la ilaaliyo weeye hase yeeshee haduu kala shaki uu yimaado confidence kalsoonida hadii luntana subxaanaka yaadi wax jira ma jira nidaamka dawladnimaduna waa sida marka insha Allah ta'ala ilaahay sida sanahana waafajiyo si heer salaamadi salaamaya waa Abshkur Maxamed Soo dhaafaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh